يا ويليام روتو ayaa maanta booqasho rasmiya ku tagay dalka Eritrea waxaana haatan ku soo dhaweeyay airportka Asmara madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki waxaana haatan labada madaxweyne salaan sharaf ay ka qaateen ciidanka dalkaasi Eritrea si markaasi wacan u soo dhaweeyay si heer sare ayaa markaasi lagu soo dhaweeyay William Ruto Eritrea hadaba maxay tahay ujeedada booqashada uu ku tagay madaxweynaha la doortay William Ruto iyo markaasi xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo Afwerki muxuu yahay ayaynu eegi doonaa sidaynu ognahay horta waa laba maqaam kala duwan baa la leeyahay marka la qeexayo labada madaxweyne waayo ilaa 19 waxa la yiri madaxweyne Afwerki wax doorasho dalkiisa kamaba qabanba sidii xilka loogu qabtay madaxbannaanida u qaadatay Eritrea weligii doorasho ma buu qaban William Ruto codkii ugu badnaa ee dimuqraadiga ayaa lagu soo doortay baa la yiri marka horta masaboogu wuu kala duwan yahay saaxiibtinimada marka dhex mari karta maxay tahay baa la leeyahay maadaama Afwerkina lagu eedeynayo inuu yahay dictator aan moogtahay mixixaaba la yiri dhinaca kalena ninkan la soo doortay William Ruto uu yahay madaxweyne dimuqraadiga oo si yaab leh uga badiyay markaasi ninkii hogaamiyaha isla tartamayay marka labada wada xiriir ka dhaxeeya maxay waxa ka dhaxeeya xiriir hoose oo moogtahay aad u qoto dheer kaasi oo in William Ruto xitaa markuu ahaa madaxweyne ku xigeenka waxa uu saaxiib dhow la ahaa oo hoosta ka xidhnaa xulafadii ahayd markaasi Abiy Ahmed iyo Farmaajo iyo Afwerki heshiiskii ay kala saxeexdeen hoosta ayuu ka taageersanaa waanu la dhacsanaa saaxiib dhow waanu lahaa laakiin sidee waa laga awood sareeyay oo moogtay Kenyatta ayaa markaa xilka isagu dayhayay marka mu awood mu lahayn laakiin se in hadii uu guuleysto uu ku soo biiri doono xulafadaasi isagu hore ayuu ballan u qaaday baa la yiri maalintii uu xilka ku guuleystayna aad ayuu martay la hadlay wuxuu yiri xitaa shacabka Soomaalida waa kilaha waxaan u sheegayaa moogtay haatan inay hadafkii ayna doonaynay ayna gaadhnay BCBB da yani ayaanka bara bulshada lagu dacayday Farmaajo kooxdiis oo kala weynu guuleysanay hadafkeenina weynu gaadhnay taasoo in Kenya iyo Soomaaliya ay saaxiib noqon doonaan hadafkoodu saasoo laakiin Farmaajo khadka ka baxay oo laga guuleystay Xasan Sheekh baa xilka yimid Xasan Sheekh hadaba waxa uu laf dhuun gashay ku noqday heshiiskii military ee saddex geesoodka ee ay kala saxeexdeen Ethiopia iyo Eritrea iyo markaasi Soomaaliya Farmaajo madaxka waanu ka baxay heshiiskiisi indirectly lamaanay soo dhaweynay labada hogaamiye ee markaasi madaxweynaha Eritrea iyo marka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed marka aad bay wanaxeen doorashada doortay Xasan Sheekh laakiin bedelkeedii waxay heleen William Ruto oo markaasi madaxtinimadii Kenya ku guuleystay waxaana hadda la sheegaya heshiiskii saddex geesoodka ee military in ay Kenya buuxinayso oo markaasi uu noqon doona geeska Afrika wadamo isku xiran William Ruto wuxuu aaminsan yahay oo waliba aad uga soo horjeeda fikirka reer galbeedka inay markaa saameyn ku yeeshaan geeska Afrika u taliyaan oo moogtay nimankeena adoonsaday buu leeyahay ama la gumeystay inay noo taliyaan ma doonayno marka fikirkaas uu aaminsan yahay baa la yiri sida Afwerki ba aaminsan yahay Abiy Ahmedna aaminsan yahay reer galbeedka colaawada weyn ay u qabaan marka waxay diidan yihiin nidaamka reer galbeedka waxay doonayaan isku maamulaan madax bannaanada faragelinta laga daayo iyo lacagaha waxay yiraahdeen lagu beer la xawsanayo waa sida ay hadalka u dhigayaan hadaba haatan heshiiska military ee saddex geesoodka waxa buuxinaysa Kenya waxaanu haatan marka aad ugu faraxsan yihiin Abiy Ahmed iyo Afwerki in William Ruto ay haatan uu saaxiibkoogii soo baxay oo waliba uu garabkooga taagan yahay heshiiskii ay haatan qalinka ku duugaya baa la yiri saddex geesoodka ee iskaashiga militariga iyo dhinaca moogtahay dhaqaalaha وهاجاك ديني عيارنا ما وواحد نعضي عيارتي قرنيقة أو تيم كي ويناي إلو سادالين يلو قاضو كوب كدونك وحين أركين إن لا يسي عيارو بالعمل تطبطن وصودي يلها كيبا كوب كقاضي دونا برازيل مثلا أرشتين يعني تيم كي ويناي لقو فانا برازيل أيا عاوا قبي جو قبل ترتراي كوحو كروات أيا هاتن لفلونك شيكون نقضي برازيل نيمار أيا أو هنتيسي لك نحقاضي قرون كيسوا هالقاس
markaasi ilmadu daadanayso isagoo markaa ku hanweynaa in uu koobka adduunka hanto oo markaasi uu ku dul dabaaldego laacibka weyn ay tartamayaan Leo Messi oo isaguna ilaa iyo haatan dhadhamila ee koobka adduunka oo caawa isaguna ciyaaraya hadaba waxa Brazil jabka weyn ku dhacay waqtigii lagu daray waqti dayac ahaa ee 30 daqiiqo ahaa ayaa marka daqiiqadu 105 ay mareysay Neymar uu dhaliyay gool la yaab leh oo farxad weyn ka keenay laakiinse kamuu sii sidin kamaanu liqin Kurwaadku daqiiqadii 116 bay ka daba keeneen gool aad u qurux badna oo aad u la farxeen waxa la dhigay rikoodhayaal halkaasina waxa ka soo gaadhay marka Brazil jabkii ugu weynaa oo marka ay ku guul daraysteen waxaana laga badiyay 3 gool oo Brazil keentay iyo 5 gool oo markaasi Kurwaadku ay halkaasi ku tirtireen Brazil halkaana waxay noqotay in Neymar laacibkii weynaa cabaadkiisii oo hinta iyo muqtamar dilaaca gaadhay laga dhex qaaday garoonkii Kurwaadku waxay u baxeen markaa afarta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo maalmahanba markaa xukuumaddiisa ay ka aamusnayd heer federaal marka la sheegayo oo aanu kaba hadalba dagaalada socda ayaa hadlay waxa uu sheegay oo uu yidhi markaa dadka wuxuu yidhi colaadii Tigreegu way dhamaatay waanu ka guulaysanay nacab kasta oo Itoobiya soo weerara oo aakhirka way jabaan buu yidhi imikana waxa ay bilaabayeen buu hadana in ay dhinac kale naga soo weeraraan markii colaadii Tigreegu naga gabagabowday aynu guulaysanay buu waa soo hadalka u dhigay waxaanu sheegay haatan in nacabka Itoobiya ay hadana bilaabayaan dagaalo kale oo u dhaxeeya xagga qoomiyadaha isagoo markaa xamaarada iyo dagaalkan ormada u dhaxeeya sheegay waxaanu yiri waan ka guulaysan doonaa kuwa soo abaabulaya dagaaladaasi xagta la marin doonaa buu yiri sidii awal baan uga guulaysan jirnay hadaba xisbiga barwaaqo ayaa haatan shir degdeg waxay isugu yimaadeen magaalada Hawaasa waxaana halkaasi shirkaasi golaha fulinta ee xisbiga barwaaqo ay ka tashanayaan arrimaha haatan dalka Itoobiya uu ku sugan yahay hadaba waxa xaliga ka jaray markaasi oo furay xisbiga fulinta barwaaqo shirkooga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga barwaaqo Aadan Faarax Soomaalida ayaa hadaba aad ugu faraxday maadaama markii koobaad nin Soomaali ah ay leeyahdeen oo xisbiga barwaaqo shirkoogii uu hogaaminayo macnaha oo furay oo waliba hore loo markay jirin bay leeyahdeen Soomaalidu in miiska looga taliyo Itoobiya ay soo fadhiistaan iska badaa in ay markaasi xadhiga ka jaraan ama ay furaan oo ay doodaasi halka ka socota ay daadihiyaan waxa lagu yaqaanay in Soomaalidu yes man hadana wixii la faro qaataan laakiin haatan Soomaali badan oo taabiciin oo dhinaca mugtay xaafidiinta ayaa waxay sheegeen in aad ugu faraxsan yihiin maadaama ay arkeen nin Soomaali oo aad farax oo markaasi haatan halka looga taliyo Itoobiya oo dhan isagu markaasi shirka madadaaleynaya ama daadihinaya hadaba dad kale waxay leeyihiin waa iska magacayaal una mugtay wax kuma fadhido oo Soomaali waxa uma soo taraysa aaminsan kooxaha mucaaradka iyagu way naqdiyayaan waxay sheegayaan inay tahay oo muunad ahaan dad u joogay laakiin waxba aan qabanin bilaha deegaanka Soomaalida iyaga waxyaabo badan ka tabanaya mucaarad iyo muxaafid qolo walba sibay markaasi arinkaasi u aragtaa hadaba waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaasi lagu jeexjeexayo waxa kamid noqon doona markaasi sidii loo hirgelin lahaa qorshaha haatan xukuumadda Itoobiya ay wado ee ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa ay sheegtay inay ragaadiyeen xukuumadda Itoobiya oo markaas sidii talaabo adag looga qaadi lahaa ololaha la dagaalanka musuqmaasuqa hadaba wuu socdaa laakiinse sidii loo sii xoojin lahaa ee loo hirgelin lahaa oo u ahaan lahaa mid transparent ah oo aan ahayn anuunba isbaaraya oo moogtay dad tiraahdo anigu ba jeebkaygan isbaarayo gacantayda kala baaraysa yani xog macna ma yeelanayo inuu mid effective oo si fiican u shaqeynaya oo gudiye madax banaan ah loo diro ay tahay ayaa lagu jeexjeexi doonaa balayri xaaladda kale ee dagaaladan moogtay soo cusboonaaday axmaarada iyo oromadana waa lagu eegi doonaa arrimo badan oo sidii loo xalin lahaa moogtay khilaafkaasina waa la isla eegaya